الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالهن maantay waxaan joognaa masaajidka la yidhaahdo masjidka abubakar sadiiq ee ku yaala deegaanka xaarxaar deegaankaasu wuxuu hoos tagaa degmada la yidhaahdo buulo burte ikhwaani fillah marka waxaan rajaynaynaa amba idan ka codsanaynaa inaad nagala soo qayb qaadataan dhismihiisa inta muslimiin ayaa laga rabaa inay gacan ka geystaan si rag iyo dumar u leeyihiin saas darteed allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allaahi axada masaajidda ilaahay baa iska lahan cid ilaahay ahayna gudihiisa ha ugu yeerina oo cibaadada lagu cibaadaysanayo ilaahay baa loo tiirinayaa waalayaal nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan filjanna qofkii masaajid dhisa oo ilaahay dartiisa u dhisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u dhisaa jannada iyo guri uga dhisaa ikhwaani fillaah waa fursad aad u qaaliya waa fursadda uu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay sadaqatuljaariya walaalaha dhintay amba waalidkaa dhintay ayaa wax ugu dari kartaa si uu noqoto sadaqatuljaariya se maxaa yeelay waa meelaha keliya ee fursadda qaaliga laga helo rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wa aqridu llaaha qardan xasana yudaacifu lakum yakfir lakum allaahu shakuurun xaliim ilaahi wax amaahsada amaah wanaagsan rabbi tabaaraka wa tacaala wuu idiin labalaabayaa amaahdaas aad amaahsateen alla subxaana wa tacaala wuu idiin labalaabayaa markuu idiin labalaabana haddana dembigiina ayaa la dhaafayaa rabbina tabaaraka wa tacaala waa midka shukrinta badan oo addoomihiisa u naxariista marka ikhwaani fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan tala saaranaynaa rabbi tabaaraka wa tacaala ha idinku ilhaamiyo inaad nagala soo qayb qaadataan waan idinka codsanaynaa saa rag iyo dumar aad u leedihiin in nagala soo qayb qaadataan ilaahina subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli waannahaari sira waclaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina kuwa yunfiquuna la baxa amwaalahum maalyaalkooda bileyli habeenkii waannahaari maalinta siran si sir oo hoos ula baxa waclaaniyatan ee niyo korkeesa ugu sugan tahay falahum kuwaas waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda cinda rabbihim rabbiga agtoodana ugu sugnaaday walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wax cabsiya iyo wax murugaana toona arki mahayaan rabbi tabaaraka wa tacala sidaasuu yiri marka waalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waa meelaha fursadaha uu dhigay qaaliga ah ina masaajidda aan isla garabsanno oona masaajiddaas aanala kaalmaysaan waa masaajid dugsiga qur-aanka waa noo dhammeeyey waa dhisnay hadda waxaana hor yaalla waalayaal waa masaajidkii bayaanteerka ayaa u shuban lacagta hadda aan lagu shaqeeyo lagu kaindhisayna waalayaal waa lagu kayna leeyahay deyn ayay nagu tahay inta dhimanna taaqad uma hayno in walaalahayna muxsiniinta aan ka dhammaa waynay inay nala garab istaagaan marka waalayaal nala soo garab istaaga labarku waa ka halka ku qoran waad arkaysaan shaashadda waa ku qoran insha allahu tacaala hadduu alla idmo labarkaas in laga soo xiriirtaan aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa macalin cabdi dhuxul siyaad dina jooga degmada buulo burte masaajidkaas ayaan waalayaal wadnaa waxay ii wakiisheen guddiga iyo odayaasha iyo culummada waxay ii wakiisheen in aan lacagtaas aniga laygu soo hagaajiyo walaalaha muxsiniinta wax alle wixii sadaqa la baxayo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaad la soo baxdaan badal kheer qaba allah idin siiyo ilaahay maalkiina allah idin barakeeyo meel kastoo dunida aad ka joogtaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku xifaadeeyo dhagarta shaydaankana allah idinka celiyo maalkiina allah idiin barakeeyo owlaadiin allah idiin barakeeyo iimaanka allah idinku sugo kii wadan gaaro jiro gaalada dhagarteeda allah ka qabto kii wadan muslimiina joogana allah ku nabad yeelo wax alle waxay sadaqadaas aad ula soo baxaysaan niyadiina ku buuxo oo niyadiina ku jiro markaas sadaqadaas la soo baxaysaan niyadiina allah idin rumeeyo ilaahayna maalkiina allah idin barakeeyo cimriga allah idin waasiciyo
walaalayaal waa naga ducaalahaas insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa qof alla qofkii kaliibkaas uu gaaro oo warkayna uu soo gaaro qofkaan ahaynin wuxuu la baxo maala waxaan ka codsanaynaa oo si wanaagsan oo waaltinimo uga codsanaynaa inuu sii sheergareeyo oo sii gudbiyo kaliibkaas oo maaragtaa walaalkiis kale oo muslimka uu sii sheergareeyo inuu guruubyada dhigo inuu dhulka ka qaado tala iyo tusaalaba maaragtaa nala garab istaago ayaan ka codsanaynaa taladu waa wax weyn tusaaluhu waa wax weyn maalkuna haba yaraadee waa wax weyn ducaduna waa ka sii weyn tahay marka insha allahu tacaala walaalayaal intaba hanaga bakhiilina waan u baahannahay adnunkuna waa idiin baahannahay adukuna ducadayna u baahan tihiin walaalo isku duubanaan nahay marka insha allahu tacaala aan isgarabsanna walaalayaal rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi maaragtahay waxaad iskugu kaalmaysaan watacaawanuu cala albiri waataqwa waxaad iskugu kaalmaysaan biriga iyo taqwada iskugu kaalmeeya walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ismiga iyo maaragtahay xudgudubka ha iskugu kaalmaynina marka insha allahu tacaala walaal meesha waa masaajid ilaahay baa lagu cibaadaysanayaa rag badan ayaa jameec la-aan ah marka insha allahu tacaala walaalayaal aan isla garabsanno isla dhisno sidaas aan isku ognahay khayr badan ayaan idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إلهي يا كريما في العطايا ولسنا للعطاء مقدرين.